Somaliland hilika guusha areeruga leexan mayso dalkeeda hagaajintiisa darar kabsami mayso Somaliland hilika guusha areeruga leexan mayso dalkeeda hagaajintiisa darar kabsami mayso horumarka jooji mayso danteeda ka hababi mayso wax qabad halalaadin mayso ilkii rabbi waayi mayso horumarka jooji mayso danteeda ka hababi mayso wax qabad halalaadin mayso ilkii rabbi waayi mayso danaystaada ma weeqo habar xasil lama helaye habeen dhalad kama dhammaado hogaaniya tala ma weydo danaystaada ma weeqo habar xasil lama helaye habeen dhalad kama dhammaado hogaaniya tala ma weydo Somaliland hore u gurtay ayaan kayrtoog la geysay hankiya himilada dalkeeda ujeediya hadaf u yeeshay Somaliland hore u gurtay ayaan kayrtoog la geysay hankiya himilada dalkeeda ujeediya hadaf u yeeshay xaqeeda hadafkeed u saartay hawada magaceeda geysay dalalka hodanka la shoortay aqoonsina kula heshiisay xaqeeda hadafkeed u saartay hawada magaceeda geysay dalalka hodanka la shoortay aqoonsina kula heshiisay danaystaada ma weeqo habar xasil lama helaye habeen dhalad kama dhammaado hogaaniya بسم الله الرحمن الرحيم warkayagii waa intaa uu maxamed yidhi iyo wixii aad horeba ula socoteen waa adduunka maanta warma kala qarsoona laakiin waa cusub baa inoo bariyey baab cusub baa inoo furmay waxaynu la soo doodnay oon u soo faarnay oon wax iyaga u sheeganay oo garawshiyo badanna siiyey dowladda Mareykanka maanta dowladda adduunka ugu xoog weyn ka mid ah talo hoggaan wada hadal waa la geli heshina waa la geli doonaa waana la isu soo dhawaan doonaa waxaynu ugu soo cusub oo inaga inoo doono wixii aanu ka sheegnay Soomaaliland oo jira oo ah dawlad buuxda
nabad dadka iyaga oo ah dad u furfuran oo ilaahay hibo u siiyey baac mushtarka iyo hal abuurka dhinac walba hal abuurka haddii laga doono dadka iyaga oo ah dad adag oo dhibaatooyinka aanu leecin ee mabda'a qarannimadooda ay tahay mid aan la leecin karin boqolaal sano hadday qaadanayso dadka iyaga oo marka qaranka la yidhaaho wax uga dhiga waxaa laynaga rabaa oonu u diyaargarudobina xukuumad ahaan iyo baarlamaan ahaan iyo shacbi ahaan iyo aqoon-yahan ahaan iyo bulsho ahaanba dowladdaa weynaynu hadalku inoo bilaabmay eenu meesha adagna geynay somalilan inay taasi dhab noqoto oo markay qaranka tahay iyo markaynu danta guud ka hadlayno aynu ka midaysnaano innaga oo waxeenna iyo qadiyadayna daafacayna oo inaan odhan waa maraykan oo wuu xoog weyn yahay inaba waynu xoog weynahay sidii laba noo wada hadlaaya aynu dantayna u gudubno taasaa inagu soo socota oo hawdha waa taallaa aada iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dadweynaha somalilan meelay joogaanba niyaddooda iyo mooralkooda gobol walba kuwa qurbaha jooga meel kasta ay joogaan aada iyo aad bay noo taageereen wixii telefoon nagu soo gaarhaya ama qoraalla intaa talayna daba joogeen waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa qurba jooggeena waayo waxay hirgeliyeen labadii dagaal ee siyaasadada ugu weynaa adduunka aynu soo bandhignay sanadkan midkii london buu ahaa waa koow baarlamaanka london oo qadiyadda soomaalida ka dooday waxaa ka abuuray oo ka shaqeeyey oo xoogga badan lahaa qurba jeeggeenu ahaa meel kastay joogaanba kan maantana inuu saa u dhaco waxaa ku hirgelay oo ka howlgalay dhammaan qurba joogga reer yurub iyo kanada oo isku geeyey xooggooda iyo maskaxdooda waxaa aada ammaan u mudan guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo iminka dadaal badan haysa waxaanu aada usii ammaanaynaa halkan oo dalka kula in la sheega ammaantooda xafiiskeenna wakiilka maraykan oo uu hogaaminayo bashiir dood aada iyo aad baan waa mahadsantihiin warka iyo taladaba way noo dambayn doonaan aada iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu